salaam dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin soo dhawaada warka hore war soo dhaaf hadii aad arki jirteen laba nin ay isguursatay amba nin aan naag guursaday amba naaga waxay guursato jeclaatay nin cawaana ama waxyaabo lamid ah aad maqli jirteen caawa waxay maraysaa inay isguursadaan laba gabdhood oo Soomaaliyeed haddana ay isa soo shaac bixiyaan oo yiraahdaan annaga isqabno annagaana isjecel annagaana isku filan waxay noqotay arintaasi arin cajaa'iba waxay noqotay arin aan loo dul qaadan karin arin aan dhaqankaba aan u fiicnayn iyo waxyaabaha annagana lagu yaqaano noo gaarka balse waxaan dhageysan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo gabdhahan cadeeyay inay ayaga ay isguursanayaan subhanallah Ilaahay nama tuso balse waqtin gabdhaha la qaataa macna hay xadid saxsan wallahi ana qaalideedu nolosha ala qaatay nolol ka macaan ma jirto oo ku faraxsana xaaskiga nolosha la qaadahay boqolkiiba boqol nin iyo naag isku lahaanta oo ku faraxsan معيرين يوتيوب كان نجد داونيسين والله ما أنا مقدشو هاي كسعة nolosha in ay ku macaantaa laba gabar nagusan gabdho soo broobay had gabdhaha broobay had adiga had daawanay gabaraatee broobay nolosha teen macaan nolosha rag la qaataa nolosha gabdhaha la qaataa wartan gabdhaha la qaataa macaan hay xadid saxsan wallahi ana qaalideedu nolosha ala qaatay nolol ka macaan ma jirto oo ku faraxsana xaaskiga nolosha la qaadahay وانا هي اسقبنا isku guursateen maxaa isku qabtiin maxaa idinka qaldan war anagu ikhtiyaaraan leenahay dad khiyaar lahaanahay waan hee isqabna khiyaaraan leenahay يعني إلهي هرتها سو هنونيو waxay ka gashay meel xun hadii ay meel xun ka gashana waxa fiican inaad Ilaahay u soo noqoto waxay shaaciyeen inay isqabaan ama ay ka hadlayaan inay labadoodaba isqabaan oo ay uga maarmeen nin dhanba ay ka maarmeen ama aysan barabinba balse waxaan isleeyahay aniga waa sheeko qaldan waa waxaan sumcadda gabdhaha ku fiicnayn warna hadii uu soo galayo social media waxa fiican inaad marka horeba ka soo fikirto hadii ay codkayga uu gaaro ama codkayga ay maqlayaan waxaan dhihi lahaa Ilaahay ha idin soo hanuuniyo ama Ilaahay ha idinka عفيو وحيابها قلتك هاد كل قميسين وواح قلدا وواح دقنك الصوماليات iyo sumcada Soomaaliyeed baan u fiicnayn waa wax anaga dhexdeena dhif iyo naadir kooy inay yiraahdaan laba gabdhood waa isqabnaa waxa jiro dad badan oo social media isticmaalo isdhihi karo waxyaabahan markay arkaan channelka uu kala kacaya ama aad baa lagu fiirsanayaa waxa laga yaabaa gabdhaan inay ku fikireen hadii aad waxaas ka sheekaysan dad badan ay idin fiirsanayo ama waxyaabo saasa dhacayo balse waxa ka fiican in dad badan ku fiirsado oo social media laga fiirsado ama subscribe badan aayasha amba like badan hesha waxa kaaga fiican sumcadaada ina ilaashato sababtoo ay wax sumcadaada kaaga fiican ma jiraan Ilaahay oo hadiye kaaga dhigay edebta oo Ilaahay hadiye kaaga dhigay sharafta oo Ilaahay hadiye kaaga dhigay waxa fiican inaad ilaashato qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdha aad u fiican waa gabdha aad u qurux badan waa gabdha aad u ixtiraam badan ila ma ahan aniga inay ceeb ay ku soo gaarayso laba qofood oo qalad ka aamintay social media sida loo isticmaal lahaa iyo sidaad follow badan ku heli lahayd qalad ka aaminay ma u maleynaayo inay gabdhaha Soomaaliyeed oo quruxda badan sumcadooda ay ku dhumayso waana mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh